deeqda raashinka ayaa waxaa la soo gaarsiiyay 100 qoys oo ka mid ah dad danyar ah oo roobabkii dhawaan ka daayay dalka ay waxyeello soo gaarsiiyeen. hay'adda ARC iyo hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka oo iskaashanaya iyo dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa deeqda raashinka gaarsiiyay 100 qoys oo ku nool magaalada Hargeysa kuwaas oo ah dad danyar ah isla markaasina ay roobabku waxyeeleeyeen. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Siciid Gaboobe iyo gudoomiye ku-xigeenka hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka waxaanay ka warrameen doorka ay hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranku ay ka qaadatay in raashinka la soo gaarsiiyo dadka danyarta ah. نحن شهود باسم حكومة سومالان أنه أول هيئة استجابت لطلب إغاثة عاجلة للمتضررين من آثار الفيضانات 100 أسرة في مدينة هرقيسة، وإن شاء الله سوف تكون هناك طلبات أخرى. الحمد لله رب العالمين، بذلك نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الجابر أحمد الجابر حفظه الله وسبه ولي العهد الأمين، وإلى رئيس قطاع أفريقيا، وإلى الرحمة العالمية بدولة الكويت. ونحن هنا نؤكد أنه هيئة لجنة أفريقيا للإغاثة لها أنشطة مختلفة في مجال الصحة والتعليم وفي مجال الإصحاح البيئي إلى جانب الإغاثات العاجلة. الحمد لله رب العالمين. halkan waxaynu ku qaybinaynaa 100 qoys raashinkood oo dadkii dooxa dhinacyada ka deganaa daadadku afeeyeen oo ay daadadku asiibeen dhimasho ma jirin laakiin waxay ka qaadeen wixii ay ku jireen iyo wixii ay cunayeen bay ka qaadeen. dalabkan waxaana soo gaarsiiyay maayar ku-xigeenka iyo dawladda hoose baa dalabkan soo gaarsiiyay. isla markii ay dalabkan soo gaarsiiyeen ka hay'adda narfoor ahaan waxaanu la hadal la xidhiidh la sameynay hay'adda ARC way ku mahadsan tahay markii ay ka soo jawaabtay. mas'uuliyiin ka socday hay'adda ARC ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaanay ka warrameen deeqdan ay ugu tala galeen dadka danyarta iyagoo kaashanaya hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka. aniga oo ku hadlay afka hay'adda ARC ama African Relief Committee sida loo yaqaanaba guud ahaan bishii Ramadaan waxaanu ka qaybinay ilaa 3,100 qoys ayaanu gaarsiinay mucaawanooyinkan taasoo dhigantay in 21,000 oo qof ay ka faa'iideysteen raashinka la qaybinayay. raashinkan maanta aanu joogno waxa loogu deeqay ama si loogu talagalay dadka ay daadadku saameeyeen annagoo oo si degdeg ah uga ajiibnay codsiga inaga yimid hay'adda ka hortagga aafooyinka. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa in uu magaranaysaay nimcada khayrkeedana siiyo nusqaanteedana naga hayo. استجابة لنداء هيئة نادفور waxaanu fulinay dalabkii ka yimiday hay'adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka 100 qoys waxaanu soo gaarsiinay raashin loogu talagalay inay ku afuraan bisha barakaysan ee Ramadaan. waxyeello ayuu soo gaarsiiyey roobabkii ka daayay dhawaan Somaliland, Kuwait iyo Somaliland mar walba waxay si kaashan doonaan dhinaca arrimaha bulshada. maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa xildhibaano ka tirsan golayaasha deegaanka degmada Hargeysa iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. waxa aanu maanta halkan 29 bisha Ramadaana aanu raashin yar oo aanu ka helay hay'adda Kuwait Foundation runtii oo uu mas'uul ka yahay Dr. Cabdiraxmaan ayin raashinkaas oo dhan 100 qoys aanu maanta halkan lagu qaybinayo oo aanu mar dhaweydna ka wada hadalay wax ka badan haddii Ilaahay inay u gudbin doonaan hay'adda caawin jirtay oo dadkii roobabka ku waxyeeloobay waa arkayseen hadalkaygii hore maalintii dhaweytoole waxaanu idin dooni doonaa intii dooxayada aag deganayd in aanu balorta raashin u doono. raashinkii waa soo helay 100 qoys oo ka mid ah. tallaabada tan xigtaana waxay noqon doontaa in badhna raashin loo soo helo badhna agabkii weelka in kii gogosha ku kastoo wax ka noqday haddii Ilaahay qoysaskaas oo ahaa qoladii roobku maalintii dhaweyd qoysaskii uu aafeeyay. ugu horreyn waxaan uga mahad celinaynaa dawladda hoose oo arrinta tan soo abaabushay ama dadka soo ururisay arrinta hormuudka ahaa maayar ku-xigeenku. marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa hay'adda ARC Kuwait ama Raxmal Kuwait oo runtii dalkan hiil iyo hooba la garab taagan waxqabadkeedana halkan aynaan ku soo koobi karayn maanta. hay'adda ARC Kuwait waa hay'addii ugu wax qaybinta badnayd hay'adaha dalka in ka badan
4,000 oo qoys ayay raashin gaarsiisay waxay wax ka qabataa waxbarashada waxay wax ka qabataa caafimaadka waxay wax ka qabataa ceelasha hay'adanu waa gacanta bidig ee wasaaradda arrimaha bulshada waa hay'adda markii ugu horeysay noo soo jawaabta hay'adaha aadka u wanaagsan ee nala shaqeeya ayay ka mid tahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa iyaga iyo mudiirkooda mudiir Cabdiraxmaan iyo Yuusuf oo ah qaybta arrimaha bulshada aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa Abaas Axmed Maxamed 5TV Hargeysa